waxaa BBC da hadda gacanteeda soo gashay waraaqihii lagu saxiixay heshiiskii daqiiqado ka hor ay kala saxiixdeen dowlad goboleedka Jubbaland iyo golaha isbedel doonka Jubbaland. qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah golaha isbedel doonka Jubbaland iyagoo tixgelinaya duruufaha adag ee Jubbaland ay ku sugan tahay una tanaasuleen danta shacabka waxay si buuxda u taageereen doorashada Jubbaland ka dhacday bishii Agoosto 2019 ee madaxweynaha Jubbaland loogu doortay Axmed Sheekh Maxamed Islaam. qodobka kale asna ugu muhiimsan qodobada heshiiskan waxaa ka mid ah in madaxweynaha uu soo dhiso xukuumad wadaag ah oo tayo leh oo ay qayb ka yihiin golaha isbedel doonka Jubbaland. qodob kale ayaa isagana wuxuu oranayaa dowladda federaalka waxaa loogu baaqayaa in la soo afjaro khilaafka muddada dheer soo jiitamayay ee kala dhaxeeya dowlad goboleedka Jubbaland. waxayna Jubbaland diyaar u tahay baa lagu yiri xalinta khilaaf kasta oo waafaqsan dastuurka dowladda federaalka iyo kan Jubbaland. waxayna diyaar u tahay wada shaqeyn buuxda. heshiiska waxaa ku saxiixan dhinaca golaha isbedel doonka xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xiddi, mudane Cabdinaasir Seeraar Maax, mudane Daahir Axmed Sheekh Cabdullaahi. dhinaca dowlad goboleedkana waxaa u saxiixay Axmed Sheekh Maxamed Islaam, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland.